xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal isla markaasina ku guuleystay tartankii ciyaaraha ee gobolada Somaliland ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaala madaxda gobolka Gabiley ee Gabiley munaasabad ballaaran oo qada sharafeed oo ay maamulka gobolka iyo ka degmadu ku casuumeen xulka gobolka Awdal isla markaasina ka dhacday guriga martida ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Gabiley xulalka kubadda cagta ee labada gobol Awdal iyo Gabiley iyo marti sharaf kale aad u tiro badan ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Bakar oo faahfaahin ka bixiyay qada sharaf ciyaartooygii gobolka Awdal ee ku soo guuleystay koobkii tartanka ciyaaraha gobolada ee Jamhuuriyadda Somaliland ee 2016 oo aad iyo aad ugu hambalyeynayno oo leenahay guushaasi maanta uu gobolka Awdal soo hooyay ee uu gobolka Awdal keenay waa guul soo yeetay dhammaan gobolada galbeedka mar haddii ay kubadii ama koobnin gobol kasta oo galbeedka u yimiday oo gobolada galbeedka uu joogi doono iyagoo uu ku meeraysan doono waxaan leenahay intii kale uu guuleysay mar hadduu jihadii ka soo leexday dib u soo noqonaya saawgaada waxaan leenahay labada degmo ama labada gobol ee Gabiley iyo gobolka Awdal waa laba gobol oo walaala waa laba gobol oo xiriirkoodu fiican yahay tani waxay horumar u tahay xiriir aanu sameynay aniga iyo xamari xogayaha dawladda hoose Gabiley ka degmada Boorame oo isku xidhay labada gobol waxa horta sharaf noo amaanta in ciyaartoygii gobolka Awdal aanu ku soo dhaweynay gobolka Gabiley anagoo si fiican wada ciyaarnay ciyaar aad iyo aad saaxiibtinimo leh warka waxa dhameeyo markii hore xamar iyo xogayaha xiriirku waa xiriir aad qoto dheer aad iyo aad baan salaamaya koobkiina wuxuu tagay galbeed bariyo ka quuso si dadaalo anigu kullee ku hadlay afkayga afka maayarka afka golaha deegaanka afka degmada waxaan leeyahay ciyaartooyga gobolka Awdal iyo maamulkooda ma hambalyo alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh runtii waxaan jecelahay halkan inaanu ugu bogaadino oo waxa weeyaan aan ugu maamusno sida aan ugu faraxsanahay guusha ay ka soo hoysay kooxda kubadda cagta ee gobolka Awdal oo ku guuleystay koobkii tartanka kubadda cagta iyo waliba orodada mid kamid aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waan u baarigaynaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee ciyaaruhu socdeen ay soo socdeen waxaan kaloo jecel halkan ugu mahadnaqo madaxda gobolka ugu horeeya gudoomiyaha gobolka walaalkii Mustafa Shiine meeyarka isuduwaha ciyaaraha gobolka Awdal ciyaartooyga gobolka dhamaantood oo ah ragga furaha u ahaa guushan ay keeneen runtiina tan waxa ay muujinaysaa Soomaalidu waxa ku maamada oodu abka dhow yani waxa weeyaan derisnimada jaarnimada walaaltinimada iyo waxa weeyaan kalgacaylka ka dhaxeeya labada gobol degmada xogayaha Gabiley iyo dhammaan marti sharafta iyo ciyaartooyga reer Gabiley iyo reer Awdal iyo bahda haweenka ay sida fiican u soo dhaweysay intaba waxaan leeyahay wax salaamina salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdigeed waan gudoonay marti soorkaad noo sameyseen waa mid walaalnimo waa mid soo jireena run ahaantii xogayahagii horena way muuteen maleeyahay xiriirka waan bilownay leeyna xiriirku waa mid soo jireeno ab iyo ehel iyo wada dhalasho aad baan ugu faraxsanahay maanta hadii aan nahay gobolka Awdal inaan fulno ballanqaadkii maalintii dhoweyd qadada aanu qaadnay ahayd koobka hadaanu soo qaadno inaan keeni doono Gabiley maanta ballantii waa aniga fulnay koobkii Ilaahay dhinaceenu mariyay guusha ay gobolka Awdal gaareen waxa guul ku timi waxa way qadar ay ku timi weeyeen waxaan aad u xusayaa in ciyaartooydii gobolka Gabiley ay ahaayeen runtii kuwii laga wada baqanay aad looga wada baqanay laakiin waxa reebay maanta gobolka aanu wadno ee Awdal baa reebay waxaana baashan waa ciyaar waa madow iyo cadaan waxaan rajaynayaa sida la sheegay sanadka dambe guul baan u rajaynaynaa Gabiley guul baan u rajaynaynaa imika waxaanu wadnaa garoonka kubadda cagta Hajdar Stadium marka faraha laga qaado aan rajaynayo horaanta December noqonayso kooxda ugu horeysa nala ciyaar doonta insha Allah waxay noqon doontaa xulka kubadda cagta ee Gabiley noqon doonta xiriirka imika Cabdiraxmaan iyo sheegeen oo imika annaan waxa la guushu ay abyal badan tahay annaan sheeganayo maadaama barasaabka hore Gabiley nahaa imikana kan oodalahay insha Allah inta ka sii xoojin doonaa waxaan rajaynayaa caruur dhalinyarada labada dhinac hadday waayeel tahay iyo hadday dumar tahay wasiirka wasaaradda warshadaha Somaliland Shucayb Maxamed Muuse iyo wasiir ku-xigeenka ciyaaraha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa ku bilaabi lahaa runtii marka ugu horeysa waxaan hambalyeynayna
xulka gobolka awdal oo aanu leenahay waa guul aad qaranka u soo hoyseen iyo guul aad gobolka awdal u soo hoyseen hambalyo halka ka sii wada qodobka labaad waxa weeye wada dhalashadu waa run way horeysay wada ilaahay baa isbaday laakiin xiriirka maamulka siyaasiga ah anigu markaan degmada joogay waxaan isoo jiray Cabdiraxmaan Nuur Abakar khamiis walba wuxuu tagi jiray Boorama inuu xamuul jiray meesha mareero kala ka sameeyay waxaan ogaaday runtii isaga iyo xamari in labada degmo xiriir fiican u bilaabeen oo aan ku hambalyeynay labadoodaba haddii xiriirka maamul ee labada district cidii bilowday waa la isweydiiyo waa xamari iyo Cabdiraxmaan darada dhalinyarada iyo ciyaaraha nahay sida habsamida ah ee ay ciyaarahaas u dhamaadeen ee walaaltinimada leh ee nabadgelyada ah ee horumarkiya ilbaxnimada ay ka muuqato aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushaasina waa mid ka mid ah sida ay u dhacday ciyaarahaasi ay u dhaceen ay guud ahaan ay u guuleysteen waa mid ka mid ah legacy-ga madaxweynaha horumarka mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo aad ogeydeen budgetkii ku baxay intuu leekaa 8 kooxood baa ku casuumay madaxtooyada haddana 2 kooxood koobabka qaaday saaxil iyo awdal haddana maanta kulan gaar ah madaxtooyada kula yeeshay oo inan walba ay ciyaaraha ka qayb galay ay taariikh u noqonayso inuu madaxweynihiisii waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case shabakada wararka Gabiley News Network magaalada Gabiley